shay kalena waxaan rajaynayaa waxaan u jeedinayaa dawladda Jabuuti ama rajiimada maanta Jabuuti ka tali waxaan leeyahay ragii idinka horreeyay niyadsami badani nooma dhaxaynin labada geesoodbana daliili waa jiri jirta waana jiri doontaa waxaase noo dhaxeeyey waxay carabtu ku tilmaanto tinkii macaawiye ayaa noo dhaxeeyey oo ay Soomaaliduna kaga maahmaahdo kala lulasho kala go ayay dhaantaa ayay Soomaaliduna kaga maahmaahdo ayadoo rajiimadan maanta joogtaa si wanaagsan weli u gujirsan labadii dalna waa kala go'an yihiin labadii dalna waa kala xidhan yihiin waxay tidhaahaa Soomaalidu karid xun iyana ku waxla bay tidhaahaa waanaynu arki doonnaa ismaroorinta maanta waa tii jaamaca gacanlow ismaroorinta maanta cidda mahadisana waa la arki doonaa waxaanse sheegayaa ragga leh sanduulaannu Somalilan waxaannu rabno ku yeelsiinaynaa waxaan raggaa ku leeyahay xidigaha cirka ilaah ku beeray ee ka widhwidh leh ayaa idinka dhow inaad Somalilan u talisaan oo waxaanay raalli ka ahayn yeelsiisa waxaan leeyahay raggaasi ha noqonnina walaalayaalow ha noqonnina kaneecadii maroodiga ku tidhi maroodiow waan kaa duuduulayaa ee isadkee yaa dhicine ha noqonnina tobankii sano ee Somalilan soo jirtay meelo badan ayaa laga colaadiyey oo aan waxba loola hadhin Butras Qaali Yuunaseen walaalaha iyo carab badankooda walaalaha iyo carbeed badankooda iyo ummado kale oo aanan halkan ku magacaabaynin annaga oo hadda isafgarannay kulligood waxay ku dadaaleen inay Somalilan saaraan dabool ay iyana dabool iyana ciijiya inay Somalilan saaraan dabool iyana ciijiya caalamkana ka qariya waa annagaasoo weli waa soo taagan weliba waa soo taagannahay sidii uu Cabdigahayru yidhi weligayba meel lagu jabay ayaan siqilan weynaaye ilaahay jecela muxuu jiray arwaxayga waxaan kelmaddaa ku wajahan dawladda Jabuuti ku soo gunaanadaya waxaanu raadiyayaasha ka maqalnay waxaa shirka ka qabanqaabinaysaan wafdi loo yimaada oo shirka na keena hadduu wafdigaasi ka kooban yahay
xubno reer Soomaaliya ah oo shirka ka socda waanu soo dhawaynaynaa waanu soo dhawaynaynaa wafdigaas laakiin soo raaci mayno ee waanu u soo warramaynaa oo runta maanta ka diran ayaanu daboolka uga soo qaadayna warkaas ka bacdi ma laga yaabaa walaaladayow in wafdiga intiisa badani idinku soo noqon ay guryahoodii ku noqdaan ma laga yaabaa hadda ka fiirsan dadkaasi waa dad walaala oo ay dan badani ka dhaxayso oo aan u baahnayn fidno laga dhex abuuro intaasaan dawladda Jabuutina ereygaan u jeedinayay u soo gunaanada waxaan doonayaa inaan wax idinka sheego haddaba